إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. waxaan ku bilaabayaa hadalka idinkoo iga raali ah اعتذار لمن حضر من غير الصوماليين. عذرا يا إخوتي في الله، فإن هذا المجلس خصص للصوماليين، فمن كان لا يتكلم باللغة الصومالية فيقبل عذرنا وأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. كبعد waxaan jecelahay inaan ka hadlo mas'alad daruuriya oo aan u arko maanta ducaadda iyo culammada waddanka jooga inay xoogga iyo laxaadka ay saaraan. mas'aladaasoo ah mas'ala mutacalliqa ku xidhan kuna salaysan aliimaaniyaat, aliimaan wamaa jaawara, iimaanka iyo waxa ag yaala ee soo ag degaba. maanta qof muslina oo ashahaadanaya oo caaqila oo baaliga oo mumayiza oo aan garanaynin inuu khamrigu uu xaaraan yahay ma jiro, inuu ilaahay xaaraantimeeyey zinada ma jiro, gabadh muslimada oo aan garanaynin inuu xijaabku waajib uu yahay ma jirto, inuu ilaahay tabarujka iyo tasayunka bigayri maa anzala allah fi khaariji manziliha wa beytiha ma jirto. maca dalik, mushkiladda meesha taallaa waxa weeye dembiyada waynu ku dhacnaa. laysa min qilati alcilm, sababtan dembiga ugu dhacaynaana ma aha cilmi la'aan ina haysata iyo faham aynu ka fognay fahmigii diiniga, laakiin musiibada ina haysataa waxa weeye iimaankeenii baa daciifa. qofku marka hadduu iimaankiisu uu daciif yahay wuxuu u helayaa ficil waluu sameeyama aqwaal buu u helayaa, oo ficil wuxuu u helayaa daliil. laakiin qofku hadduu iimaankiisu heer sare uu taagan yahay, marka lagu idhaahdo ittaqi illaaha tadrifu caynaah, marka lagu idhaahdo ilaahay ka cabso wuu ilmaynayaa, marka lagu idhaahdo ka joog ilaahay wuu xaaraantimeeyey mas'aladda wuu ka gaabsanayaa, marka lagu idhaahdo ilaahay ma jeclaa arrintaa wuu ka fogaanayaa. marka waxaynu u baahannahay haddii aynu nahay ummad ka tirsan ummadda islaamka ah loona yaqaano ummadda Soomaaliyeed
inaynu laxaadkeenna iyo quwaddeenna aynu saaro caynkaynu iimaankeenna u soo kicin lahayn. walaalayaal, haddii aad macsiyad ku dhacdid oo aanay macsiyaddu ku damqin, ama waajib aad ka tallaabsatid oo waajibka aad ka tallaabsatay aad ka seexan kari weydid, habeenka aad ka seexan kari weyd, markaa waxaad ogaataa iimaankaaga waxbaa ka qaldan. waxaan u jeedaa darajadu iimaanku uu taagan yahay. marka bal waxbaan ka yara taabanaya hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo ogolaado. kow, ta ugu horraysa, qof aan iimaan lahayni jannada ma gelayo. waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu. cid jannada foodda saarayso oo jannada gelayso oo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannada ku abuuray ka faa'iidaysanaysa oo aan mu'min ahayni ma jiro. ilaahayna qur'aanka wuxuu ku sheegay inuu iimaanku uu yahay, ama dadka mu'miniintii ay yihiin ee muslimiinta dadku ilaahay fadilay. waxaanu ku fadilay because camal khayra ayay la yimaadeen. oo ilaahay wuxuu yidhi: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billah. ilaahay wuxuu yidhi wuxuu idinka dhigay ummadda nebi maxamedey ummadihii uu sameeyey tii ugu fadliga badnayd. sababtu afdaliyadda idiin siiyana waxa weeye buu yihi nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxa weeye ta'muruuna bilmacruuf, khayrka ayaa isfartaan, waxa xunna waa iska reebtaan, ilaahayna waa aaminteeno mu'miniin baa tihiin. culammadu marka waxay yidhaahdeen islaamku waa laba baal buu leeyahay: aliimaanu waalcamal. taa aawadeed baynu maqalnaa aayado fara badan oo ilaahay leeyahay: aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat. kuwa ilaahay rumeeyey ee camalka saalixa la yimi. iimaankan marka xaggee baa laga helaa? iimaanka waxaa laga helaa fi lqalb. iimaanku keliyaha kuma jiro, cududda inooma saara, garbaha inooma saara, cududda inooguma jiro. iimaankan waxaa laga helaa fi lqalb. qalbiguna qalbi bani aadam uu isbadbedel badan yahay, oo laga yaabaa intii aan u soo socday masaajidka waxaan ka imi sheekh aadam, intii aan u soo socday aan ka soo lugayey masaajidka ilaa iyo masaajidkan, inuu wadnahaygu intaasoo goor isrogay oo isbedelay oo niyaddeedu ay isbedeshay. laga yaabaa qof waloo halkan yimi intuu soo socday inay intaasoo goor iimaankiisa iyo mabda'iisa iyo niyaddiisa ay isbedeshay. waayo shaydaan baa kaa shaqaysanaya. adoo niyad wanaagsan gurigaagii kaga soo baxay oo le waxaan doonayaa ina xalaqat alcilm, muxaadarad ilaahay lagu xusayo, nebiga lagu saliyayo sala allahu calayhi wasalam, dadkii saalixiintahay carabka aan laga qaadaynin, inaan ka qayb qaato ayaan doonayaa buu haddana shaydaanku intuu ku bedela buu ka odhanayaa: bal hebella iskala soo sheekayso, hebella arrintaasaad uga baahanayde bataana ka warayso, hebel iyo hebel xagga arrimuhu marayaan. wuxuu bedelayaa iimaanka, niyaddaadii ayuu bedelayaa. lidaalik nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: inamaa sumiya alqalbu min taqallubih. qalbiga waxaa loogu bixiyey qalb wuu isrogrog badan yahay, wuu isbedel badan yahay, taqallubkiisa ayaa fara badan. marka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asagoo tusaale inoo tusaya oo doonayay inuu wadnaha tusaale u siiyo, wuxuu yidhi: inamaa mathalu alqalbi kamathali riishatin mucallaqatin fii asli الshajara yuqallibuha alriixu dahran libad. wuxuu yidhi wadnuhu wuxuu ka dhigan yahay baal lagu xidhay, waad garanaysaa baalkii gorayada, oo aad dunyar ku xidhid laan halkaa taagan ama laan bartaa ku taalla,
وهودو مركي دينا عن كغر دفتبا دينا عيسو وريتشين سيبو ودنه بنا آدم كأولمي دي هبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميل الصلكة كما هيو وها انت النور دير إنه النبي صلى الله عليه وسلم ويلي لقلب بني آدم أشد تقلبا أو أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا وحلو ودنها بنا آدم وحو إسكبت بدل بدني هي بيها كرية هدي إن يا رب يا ضبك آد سهرتد ومركا أي بيه كران أي بود كسرعة أيوب بن آدم كودنيه سرعة ودنيه وكسف أذكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أي كسف بدنته وحكى له عجيبة إنه النبي إنه شيء صلى الله عليه وسلم ووحي إن قلوب بني آدم ابن آدم كودنيه سأرضا كلها مركا الله وضع أروريه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يصرفها كيف شاء وضنها بن آدم كأرضا لبفرض وإلهي الله سبحانه وتعالى لحظة دي كتشيران سيدو الذنوب بدل مركز سوري النبي صلى الله عليه وسلم وحي النور رعيه وحي لي قال وحت هذا المركز النبي وحي لي اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك إلهي كي وضنياشا تشيديو كي تشيديو وضنها يجا واحد أتشيديسه طاعت هذا عبادة هذا ولا ليا وحكى النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاء ومبدأ دنيا ودنهن وكسر هدي عد مساجد كي صوغ شيء وإلهي وكسو هنوني بالروسين كتلك هادلغنن شيطان كنفتنا حيث السين شيطان كيما كايد كي سنها آمنين واي النبي صلى الله عليه وسلم وحي إنه شاء إيمانك ودنها كتشرة حالة وكتشوغا كما تشوغا يمر والبا ووحي لقيس حديثك إن الإيمان لا يخل إيمانك وحي كقبوبا ودنها في جوف أحدكم ودنهين أي كقبوبا النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك كما يخلق الثوب سدو خميس كاد حرمتهاي يا عمامد اد حرمتهاي يا سروالك اد حرمتهاي يا كوفيد اد حرمتهاي اي جيركاغا ugu dul gaboobaan ayuu iimaankaaguna wadnahaaga ugu gaboobaa oo wadnahani hadii aan iimaanka la jadiidin wuxuu noqonayaa baali oo adigoo isla wallahi mu'min baati oo wad hagaagsan tahay ayuu shaytaanku kugu soo maaxaya oo wuu kugu soo soconaya oo goor ku duufsadayba garan maysid maxaad ku aragtaa waxaad ku aragtaa markay salaadu caade ku noqotay cibaado ku noqon weydo oo fiirsada salaad baad galaysaa takbiirat al-ihraam bad imaamkii la qabsanaysa imaamka markaad la qabsatid faatixada markuu dhaafo suuradu akhriye garan maysid marka ragcada saddexaad aad maraysid adigu qudhaadu hadduu iimaamku uu qaldamo ama uu rukuuc ka boodo ama tashahud uu ka boodo hadduu qof subxaan allah xagga dambe ka yidhaaha adigii baa shakiyaya haddii aad shakidid adiga oo cid kale subxaan allah odhan weydid adigii buu shaki kale ku sii furaysa odhanaysa waa nin adigii yara baxaye malaa intii ba lagaa gaadhsiiyey iska aamu oo shibta gal markaase hadhow ayaa iimaamkii iyo idinkii baa isku dhex daadanaya waxay taasi caddaynaysaa waxaad aamintay iimaankaagu inuu kugu jirayo wadnaha iimaankiina wuu gaboobo cibaadadii buu caado kaaga dhigay soontii waxay noqotay caado oo waad soomaysaa markaad soontid macsiyadii ay kaa ilaalin jirtay kaa ilaalin mayso wixii xumaaya ay kaa reebi jirtay kaa reebi mayso gaajo iyo haraad umad ka dhaxlaysa marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay wadnuhu iimaanku wadnahaagu ayuu ku gaboobaaye waxa ilaahay weydiisatana waxa tidhaahdaa fas'alu allaha an yujaddida al-iimaana fi quluubikum
وحاورنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا إلهي ودنها إيمانك نوغو عسبيني سيبا أورانيسا ولا ليا waxaan doonayaa inaan yara taabto astaamo ku saabsan maxaad ku garanaysaa inuu iimaankaagu uu ka tagay meeshii aad ku ogeyd maxaad ku garanaysaa inay iimaankaagu uu daciifay oo uu fogaaday oo uu guray astaamahan inoo tirinayaa bal xasuusta ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga haynoo barakeey وحكمده قال العلماء وحكمده الوقوع في المعصية إنه قفك الدنبغ سيحاولير أقرعه سيحاولير إنه الدنبغ أقرعه أصغان قرنينين وأمان كبفلينين بعد أركيسا أصغو الدنبغ دحجيرا وهذا أركيسا لما قفوا قف حمانية إن سي هاولير أي تهي أدوغنا إن دينعك قبتي أتى ورمنينك غير هبل والله وبالله ننكاس عينك المودة يمعه وهلك أدوغنا أشياء كذا كقسي قبتي وحي كتوسا سامركا سي هاولير هدياد معصية وقل عدد إنه إيمانك أصيب قرية هدياد مقشد ميوزك أما موسيقى ad adugu markaa iskala sii wadid ama aad iska dhageysatid ama aad iska dhagatirtid oo aanad ka diiqadoonin dukaan baad galaysaa ama meel baad galaysaa ama warkaad daawanaysaa aljazeera sida isha ugu haysaayo music bay ciyaareen adigii diiqad nafsi kama dareemin kamaad xumaanin waad sii waday waad iska sii dhageysatay inaad macaasiyad ku jirtid ma ogid waxaad ogaataa inuu iimaankaagu uu daciif yahay waxaad arkaysaa gabadh qaawan ilaahay laga yaabaa inuu idinkayda astulay wadan muslina aad joogtaan laakiin waan arkay waxa ku dhicnooshiin laakiin waxa laga yaabaa annakoo kale inaanu aragno gabadh qaawan oo de labbayk allahumma labbayk in yara macawrada soo asturtay mooyaan wax kale iska soo dhigtay oo haddana ku khidmadaynaysa ama tigir kaa iibinaysa ama cunto kaa iibinaysa ama lacag kaa qaadaysa oo inaad eegtid oo aad la hadashid aanay waxba ahayn taasina ay tahay macsiyad aad ku dhacaysid qul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim ilaahay wuxuu waxaad ku tiraahdaa dadka mu'miniinta ah inay ishooda ay dajiyaan oo aanay macsiyadda eegin gabadha aanay eegin laakiin iimaankii baa guray markay gabadhu sida ay ku hortaagan tahay adugu maba dareema sidaad macsiyad ku jirtid waad la sii wadaysaa taasi waxay daliil ku tahay inuu iimaankaagu guray inaanay meeshii waxba ku harin waayu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih waa ninkii macsiyad iyo dembi iyo wax munkar ah oo shareecaddu ay diiday arka war gacanta ha ku bedelo فمن لم يستطع كي قعنت كري وايا فبلسانه وعربك هكهض هكل واقع كلمة حقه هالشيء هيدا هذا ولا لا أسر هيدا هذا وحى مؤ قليل وحى رالك منهن فبلسانه فمن لم يستطع تكاقفك كاكري وايا النبي صلى الله عليه وسلم فبقلبه wadnaha ha ka naco markaasuu muxuu raaciyey nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wadalika adcafu liimaan iimaanka inta ugu yari waa karaahadda aad wadnaha ku haysid inaad yaro karaahdid macsiyadda annakuna waddan baanu joognaa aanu aragno rag gacmaha is haysta rag ishalkaa isku dhunkanaya dumarka intay ka timi rag halkaa isku haysta kursi iskula fadhiya oo haddana aanad dareemaynin xanuun oo aanad odhanaynin tollaahi maxaa waddankan idhigoo kale amad odhanayn waa niyo kalimat alxaq ma idhaahda aanad odhanaynin labadaa dumara is haysa ama ninkay gabadha is haysa ama war xaqa kelmad ma ka idhaahda aanad odhanayn dareenna aanu kugu jirin marka waxaad ogaataa inay tahay
min ضacfi aliimaan inuu iimaankii aad iyo aad u guuray. taasina waxa weeye ta ugu horeysa. haddii aad markaa isku aragtid taa oo aad aragtid macsiyadii aad ku dhacaysid ama reerkaagii ku dhacaya macsiyad, waxaad arkaysaa annaka musiibad baan haysata Canada. musiibada Canada na haysata waxa weeye dumarkayagii xitaa kuwii jilbaabka haysta cabaayadaha xidhnaa iyo niqaabka xidhnaa ayaa saqda dhexe guuraynayaan. hadda waa saqda dhexe 12 ayay baxayaan. xaggay tegayaan? ma qiyaam al-layl, ma salaat al-kusuf wal-khusuf ay tukanayaan, maya aroos bay tegayaan. markaasaa ilaa iyo subaxdii bay soo maasha allah aad odhanaysa xagga ku maqleen ma Riyaad as-Saalixiin baa soo akhrideen? maya. ma Saxiix al-Bukhaari baa soo dhammaysteen? maya. ma qiyaam al-layl baa soo tukateen? maya. heblaaya la guursaday oo aan arka soo tumanay arooska. ninka ee Soomaaliyeed hadduu aanu dareemin inay taasi qalad ay tahay, ay macsiyo tahay, ay dayuusnimo ay tahay, taasi waxay caddaynaysaa inuu iimaanka guray. waayo wuquucak fi lmacsiya si hawl yar bay noqotay. ta labada aad dareemaysaa walaalayaal waxa weeye ay culammadu sheegeen qaswat aliimaan aw ashucuuru biqaswat alqalb, inuu wadnahaagu aanu jixinjixaynin. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlaya bani israa'iil qaala ثuma qasat quluubuhum ثuma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara. markuu bani israa'iil macaasigay soo sameeyeen oo dhan uu soo tiriyey, ilme ay dileen, nebi muuse oo ka horreeyey iyo masaa'ibkay soo mariyeen, wuxuu ihi ثuma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara. wadnihiinni baa adkaaday oo sida dhagaxa ayuu noqday. dhagax halkaa taagan oo laabta kuugu jira ayuu noqday. saddexaad aad ku garanaysaa waxaa ka mid ah cadam alitqaan alcibaada, inaad cibaadadii ilaahay ku faray sidii ilaahay ku faray aanad u gudanaynin. oo salaad bilaa khushuuca bilaa itqaana aanad garanaynin waxaad akhriday, tashahudku kuu yahay, adkaarkaad akhriday. markaad waxaasoo dhan aad aragtid waxaad isku aragtaad ogaataa inuu iimaanku uu daciifay. waxaa kale ka mid ah attakaasul, inuu qofku laysinimo iyo caajisnimo iyo kasal uu la yimaado markay timaado fii taacati illaah. markay timaado cibaadada ilaahay, qiyaama leyl uma kacayo, salaat alfajr uma kacayo, laakiin shaqada wuu u kacaya. salaat alfajr wuu habsaaminaya, laakiin shaqada ma habsaaminayo oo kama habsaamayo saacadda uu ku buuxsanaya. shaqada loo diro uu ninka gaalku u diro si wanaagsan buu uga soo baxaya oo itqaan buu la imanaya, laakiin cibaadadii uu ilaahay faray si gadsi ayuu degdeg bay ku dhammaynaya oo kadsi. yacni waxay caddaynaysaa taasi inuu qofkani aanu danka lahayn diinta iyo cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala. salaat alcishaa waynu wada tukannay caawa. imise qofoo innaka naga mida ayaa isxisaabiyey oo yidhi tolow ilaahay salaadii aan u tukaday caawa mayga aqbalay mise maya. waxaad arkaysaa dhallinyaro kubadda saacado ciyaaraysa. hadda saacaday ciyaarayaan way ordayeen sidii fardaha, isma taagayaan. waxay ka soo safarayaan meel fog. hebelow isoo mar yaan kubaddii i dhaafin, hebelow hayga imanin, hay ilaawin. wuu 100 goor buu xasuusinaya. muddo dheer bay soo soconayaan. ijtihaadka uu ku sameynayo ama uu gelinayo fi shayin taafih, waxaan laa yughni walaa yughni min juuc. markay laakiin cibaadada timaado salaadii degdeg buu uga baxaya, asagoo sunnihii aan tukanin oo aan dikrigii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu inagu dhiirigeliya aan buuxinin ayuu boodaya. dumarku suuqa moolalka ayaa laga yaabaa inay sidii fiidmeerta soo wareegaan oo aanay fadhiisanin oo kabuhu kaga dhammaadaan. laakiin xalaqat dikr, meel xalaqada oo ilaahay lagu xusayo oo nebigii lagu salliyayo, lagama yaaba inay tagaan. laga yaaba inaynu ijtihaadka gelinno meelo fara badan
laakiin markay timaado cibaadada aynu la nimaadno takaasud iyo taraakhi. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala. markay salaada u kacayaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo kusaal ah oo laysinimo ay saaran tahay ayay kacaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. taa ogsoonow haddii aad markaa dareentid arrimihii adduunka inaad u firfircoon tahay oo aad maasha allah aanad jeclad inaad ka hadhin, laakiin markay cibaadadii iyo diintii ay timaado aad cagaha jiidaysid waxaad ogaataa inuu iimaankaagu uu daciifay oo meeshan wadnahan aad sidataa inaanay wax badani ku hadhin baad ayaa ku cad waad ogsoonaanaysaa. waxaa kale ka mid a cadamu ta'ahur biqiraa'ati alqur'aan. inuu imaamku markuu qur'aanka uu akhriyo uu faatixada akhriyo ma dhuuxaysid, ta'ahur kugu samayn maayo. odhan maysid ilaahay subxaanahu wa tacaala 17 goor buu igu amray inaan akhriyo suurat alfaatixa oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. tolo ilaahay muxuu uga jeedaa? alxamdu lilah macnaheedu waa maxay? haddii aan macnaheeda aan fahmo oo aan fahamsanahay maxaan talo ilaahay ugu mahadnaqa? qur'aanka ma dhuuxaysid oo qofku ma dhuuxayo. wuxuu odhanayaa wuu qiraa'adu heba sheekhaasi qiraa'adiisu waa qiraa'ad qurux badan. sheekh sudays qiraa'adiisu aad bay qurux badan tahay. sheekh maahir almacayqir qiraa'adiisu way qurux badan tahay. laakiin midka odhanaya qiraa'a mu'athira waa qiraa'ad wadnaha ku taabanaysa wuu inagu yar yahay. laga yaabaa sheekh aadan ama imaamada masaajidadu hadday nagu tukiyaan salaat alfajr cabasa watawalla. war miyuu waa shabeynlo ninka inuu shaqi naga dambaysa miyaanu ogeyn? ma cabasuu inagu dhammeeyey? waxaa jira wadaadada ka mida salaada iyadu masaajidayadu 10 mir baan ku dhammaynaa. hadda sunankii salaada, waajibaat الsalaa, arkaan الsalaa, qiraa'ad iyo dikr iyo takbiira iyo taxmiida iyo tasliima intaba marka laisu soo ururiyo waa 10 mirin. masaajidka kale waa 10 mirin. markaanu salaadii ka baxnay mid baa soo kaaydu tago markaasuu yidhi war heede sheekh de adiga haddaan shaqa kaa dambayno halkaan iska dhex fadhiyo masaajidka anaka shaqa naga dambaysa noo dedeji. waxaan ku yidhi xaggaad ka shaqaysaa? wuxuu yidhi shaqo ma haye shaqa doondoon baana haye, laakiin dee bahasha waad nagu dheeraysa. waxaan idhi waa 8 habeennimo cishaahi weeye, gaal aad applicationka u soo dhiibaysaana ma jiro, shaqo aad gelaysaana ma haysid, maxaad ku degdegaysaa? wuxuu yidhi adaara buu yidhi ragcaddii labaad markaad maraysa horta salaadii ugu dambaysay buu yidhi anigu hargeysaan joogay buu yidhi carruurtii baan kala xarraasayay. dee ilaahay idin barakeeya baana ku barakeeya xarraaskaas bal 10 kaa mirin ilaahay subxaanahu wa tacaala amaahay. qofku mu'minkii markuu salaadii ay diiqad ku noqoto goormuu dhammaynaya, goormuu ka baxaya? waxaad ogaataa marka inaanu meeshii iimaan ku hadhin, inay iimaanka uu aad u sii gurayo. ta 8aad ama 7aad lagu garta qofku inuu iimaankiisu uu daciif yahay waxa weeye markuu qofku arko maxaarim illaahi tuntahak falaa yatamacar wajhu ghadaban lilah. markuu arko xuduudka ilaahay oo laga tallaabsanayo laakiin aanu dan ka lahayn, xuduudka ilaahay lagu tumanayo oo aanu dan ka lahayn. dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo Canada nala joogta waxaanu kulannaa maalinta salaasada kubad bay ciyaaraan. kubadda la ciyaarayo nin baa nagu jiray markaa isniintii noogu dambaysay, waa maalinta isniineed. ninkii markaa ilaahay buu caayay subxaanahu wa tacaala. ilaahay ayuu caayay. kelmaddii ilaahay la caayay dhegtayga soo dhacday. qoladii halkaa joogtay baan ku idhi waniyuma mid ilaahay caaya idinku jira? maya bay idhahdeen ilaahay caayi kara. ninkii ilaahay caayay subxaanahu wa tacaala ayaa nin iska waalan buu ahayoo xidigaha tirinaya.
iska yara fayansana ninkii difaacayay buu reerkoodii caay war meedinkii reer hebel ay la hadlayay buu yiri annaka reer hebel waxa ku sameeyna ninkii reerkiisa la caayay ninkii ba laga qaban waay war maxaa dhacay baan ku hebel wax ninkan annaku reerkayga buu caayo war ninkan miyaanu hay ninkan markii uu taqariinayay markii ilaahay caayay ilaahay asaga ilaahay way laakiin annaka reerka buu ilaahay way ilaahay annaka reerka marka maxaad u garanaysaa qofka waxaad u garanaysaa inaan meeshii iimaan ku jirin ayaad garanaysaa waxaan garanayaa subxaan allah sheeko aan hore ii soo martay oo cajiib ahayd oo annaka marka sheekh waxaan ula tegay sheekadii sheekh cabdulcaziiz ali sheekh waa muftiga magaalada sacuudi waddanka sacuudiga ee mufti alcaam sheekh markan qisadii u sheegay wahadli kari waay wuxuu ku waashay laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah allahuma laa tuftinna allahuma laa tuftinna sheekadu maxay ahayd sheekadu waxay ahayd annagoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary oo magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh ilaahay subxaanahu waa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahab leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhi markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay mafaatinkii ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii marba waxay tidhaahdaa that is beautiful way aad bay u qurux badantay ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala tawxiidka inuu ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu ilaahay halkan inala joogin inaanu ilaahay inagu dhex jirin inaanu ilaahay inaan lahayn inaanu ilaahay reer lahayn inaanu ilaahay way ka mabsuuday waxay tidhi that is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nebi maxamed iyo icjaaskiisii iyo caalam alajinna iyo embryology-ga iyo inuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qur-aanka loogu sheegay maraaxilu ibni aadanka loo sameeyo iyo maraaxilu waxaa dhan baan u sheegay aad bay uga mabsuuday marka shantii rukun u dhammeeyey ayay tidhi I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tidhi qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tidhi anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay dee waxaanad arkaysid ilaahay wixii qalabkii uu siiyena waan iska zuulay oo waan iska gooyey gabadh baan ahay ilaahay dembiga may dhaafaya ilaahay dembiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa taloba ma eegtaa mise waa dembi ila ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha iminka ma kor baad u eegtaa oo ba wejigaad aragtaa mise waa dembi miyaad ka jeesataa maxaad u sharaxdaa haddii ay muslimto xaggaan geeyaa ma xijaab baan u xidhay dumarkaan u geeyaa kowdha mise waxaan idhaahdaa khamiis soo xido raggiisa soo dhex taga adigoo intan xambaarsan ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo dee haddaan idinku idhahdo waa dumarkii nin baa la tukanaya dee way dilaysaan
haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana dee khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku odhi marka waa arrin weyn waa dembi ilaahay laga galay subxaanahu wa tacaala khalqigii ilaahay ku siiyey subxaanahu nin buu kaa dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaaba isku beertid inuu aaladii ilaahay ku siiyey aad ka goysid inaad meel kale waxyaabuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu talingelin baad dhex gashay bal u kaadi ilaahay wuxuu ii hawl yareeyey inaan sacuudiga tago marka waxaan la kulmay cabdalla xuqayl wadaad la yidhaahdo ani waa sheekha ii geeye muftigii buu ii geeyey muftigii baan ku odhi yaa fadiilati sheekh xaalad sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa jirta fama alxukm wadaadkii intan ka filayey inuu fatwo isiiyo wuu dawakhay markaasuu maroola dilaacay qaala ayucsi illaah بهذه الطريقة ومساسة إلهي دم الله قلها إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله مركاسو مرة يقسي تشيستا مركاسو إغنور قريب وذاتك هل كاسان أكفر يا شيخ وحنقول يا شيخ قفك السوغية كان إذا كنا قنيا افتينا في المسألة شيخ مركا يا أمس wax allaalay wuxuu igu ilaahdo markan la hadlaba wuxuu ilaahdaa laa xawla walaa quwata illa billah yaa sheekh gabadhi mayeen muslim misagaal baan ku daynaa laa xawla walaa quwata illa billah markaasaan ku yaa sheekh azidak min ash-shi'ri bayt aan ku sii kordhiyo in waana guurdana maxaynu sameynaa markaasuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un midaba fadhiyaa yaa sheekh qul lahu yaktub قل له يكتب فنجعلها أو نضعها أمام اللجنة فتوذها سوقرة وذاتكها سوقرة وحن أقد بيننا وإن قوينات معصية داسي فردقي مركا وحي ميشة شوقي أوردن حنششق ورمية دعوة ما يلهي بس الدنبي لو قال من معصية دا وحن درمي مركا مجلس كان ina dembiga ilaahay laga galay ee kanada laga galay ee qof gaari uu ka galay inuu taabtay wadaadka halkaa jooga waxaana ii cadaysay markaa wadaadkan in hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro inuu wadnihiisu markaa aanu aradin oo aanu asaguna angegnayn inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankii ku daayay oo iimaankii ku abuuray waxaan jecelahay markaa walaalayaal inaan inta ku soo gunaanado ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga haynoo barakay laakiin calaamado fara badan baa jira oo la isku arko haddii inta aan taabtay aad isku aragtid ama aad ogaatid inaad calaamadaha ay adigu aad calaamadaad ku dhex jirtid ay yihiin isgaad oo nafta badbaadi oo wadnaha waxaad ku rushaysaa shay min dikri illaah وتلاوة القرآن يا مساجد كل يماده يا نفط الآذو حكميسي ويا نفط بنا آدم كي عجيب واحد برتد أي رعضة هديت مركز طاعة الله يا قيام الليل يا الذكر يا قراءة القرآن يا وحيابها إلى هاي وتشعلي نفط كما ويلي سيدنا نفط ويكو صور راعي هديت كم مشغول السيد وحيابها بلا معناه ciyaaro la daawanayo suuq dumar suuq la geynayo caruur kabahoodii iyo koofiyadahoodii laga shaqaynayo waxyaabo umuura dunya aad isku mashquulisid ayadoo aad kula tagtay ay kula fogaatay baad arki doontaa markuu malakal mawt uu yimaado aniga intaas iga tahay ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أدري إن ولدد وقت السؤال يجواب أي شيران يا إنكلا حكم قبل ما حكى قاعد علماء هرتش علماء ويسكو خلاف
sheekh ali sheikh iyo cabdalla almutlaq oo joogay markaa iyo alxuqayl يا غديان انت بوي تشوغين وحيدتنا رحمهم الله انت كنا حفظهم الله وي وحفت ودا ويسين كروايه وحنو تغي مركا شيخ الله يراهدو عبد العزيز الفوزان عبد العزيز الفوزان وحيسيهن شيخ صالح الفوزان وانا شيخ نلا تشوغي مرايكن كشن سنادود واحوال الغرب يا مشاكل كغرب كجيره امشى السنوات لا دخ نولا مساله دي marka wuxuu yiri waxa waajiba inay gabadhani sidii uu ilaahay u abuuray isku celiso oo marka waxan ay isgalisay iska saarto in isku muddo hormonaadkii loogu talagalay in lidhukur oo dhukuriya marka male hormones bay dhahdaan marka raganimadii waa inay soo celisaa marka irbada isku mudaano irbadahani gad timihii buu ka jaraya codkii buu ka dhigayaa cod naacim oo soft ah waxay isku mudaan hormonaad unthawiya marka waa in hormonaad dakari isku mudaa oo asligiisii ku noqda waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sanada ah iyo lacag fara badan marka loo doono marka aalati dhakra loo doono ila aalati untha wamka ayu xambaarsan yahay gabadhu iska dhiga marka waa nimada lagu soo celiya mar labaad waxaan muddo qaadanaysaa fadilati sheekh muddada maxaa la sameeyay kayfa yataamal ma'a hada al-insan sideebaan ula macaamilna marka wuxuu yiri fi waqti al-haadir waqtiga haadirka waxay asligu isinu xukunka sharciga uu ognahay qofka bini aadamka waa saddex وذكر وأنثى يخنثى صدح داوي أما دوانين أما وقبر أما واللباب مركا وحو يدي لباب كي مجلين كرو إلهي سأمو أبورين أيضا يسكر لي تواسق يسكر لي لكن بحكم الظاهر كي حد يقفكو الدنيا إنه مساجد يمادو ولا بد إنه مساجد يمادو وإنه قسم الدمركة لو بيريا مركا قسم دمرك وين لو بيريا حدو مركو عدكو وسو نقدو او اركو مركا انو وسو غلايو قسمي اما نوعيه الرجوليه اما نوعيه الرجل وسو غلايو مركا واينس مركا حق دمركا لو سو وريجي waxaan maleynaya xaq rag afwan waxaan maleynaya inay ku dhacday mas'ala saaso kala ah in namsa ama Switzerland iyo Switzerland meel ka dhacday imaamku marka wuxuu ka dhigay imaamkaasi حكم الخنثى لكن الشيخ الفوزان وحول حكم الخنثى يو أيضا إني وذات كان الله هذا سلمان عودة حكم إن اللوع ليو أصل جيس يقف والله أعلى وأعلم نعم نعم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص صفة إلهي سبحانه وتعالى الأنصار وكشت المابيه والأنصار أيقوا باهن حديث كنا وهم قشين حديث كنا النبي صلى الله عليه وسلم نكي نبي يمير يا رسول الله صدح إيشو حبا مانعون صدح إيشو أي مرتي قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم وريريه سي قيس أصوم مري markuu waxba ka soo waayay nabigu sallallahu alayhi wa sallam minbar ku yimi wuxuu yiri war ninkan ii martida ayaa marti qaadaya nin ansaariya kacay ninkii baa ya rasuulallah martidaada ana marti qaadaya marka waa ki kaxeeyay sida sheekadii inuu ogeyn ninkii ansaariyana waa ki reerkii intuu u geeyay gabadhii ku yiri waxaan cunno oo ninkan la siiyo ma hayna waa tii cashada caruurta digsiga u saaran digsiga ku jirta dabka saaran un bataala seexibu caruurta waa kuwii markaa ninkii la soo fadhiistay ee cuntadii gacanta galgeliyay iska dhigay cuntada cunaya ayagoon cunto aan afkooda gaadhaynin ka bacdina ninkii markuu dhargay
subaxdii waa kii nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam ninkii ansaariga oo kale nebiga ugu bishaariyey aayaddan wayu'thiruuna calaa anfusihim marka fi xaalat aliithaar imaam ashaafici qaala fi lqurubaati madmuuma wa fi gayriha maxmuuda fi lqurubaati madmuuma wa fi gayriha maxmuuda aliithaarku marka wuxuu yidhi markay qurubaadka ay timaado xagga cibaadada ay timaado inaad qof iska horraysiisid aad fadliga siisid waa madmuum oo lama jecla tusaale oo kale maalan qof baa safkii hore meel baa ka bannaanaatay waa furjad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey waa fadli ilaahay uu ku siiyey halkaad markii adugu intaad meeshii aad geli lahayd kii ku ag tagnaa baa tidhi gal waa qurbad markaa waa qurbad iyo fadli ilaahay ku siiyey marka qof baad siisay imaama shaafici taa lama ogolaa buu yidhi oo hadiyad iyo fadli ilaahay ku siiyey ayaa tidhi ma doonayo qof kale ha qaato ama maalan adigoo helaa ilmacuuna walma'uuna ama tadkirad ila alcumra adoo 100 goor soo cumraysaba tadkirad baad heshay cumro ah waxaa tahay waniyo anigu maba doonaya iska qaado adigu tadkiraddan marka fi lqurubaat bay gashay waad ka kaaftoontay marka ajrigii iyo fadligii ilaahay ku siiyey marka imaam shaafici wuxuu yidhi taa ma wanaagsana laakiin waxyaabihii adduunka inaad walaalka iithaarka cunto aad siisid isaga adigoo gaajoonaya biyo aad siisid adigoo haraadan sariirtaada uga kacdid adoo daalan gurigaaga aad u soo dhowaysid soo gelisid yacni waa min alashyaa almufadala nin baan daawanayay in gaal ahaayoo muslimay wuxuu ku muslimay bifadli iithaar ina ka daawateen mooyaane nin buu ahaa imika daaciya oo Europeana wuxuu yidhi aniga iyo isaga iyo xaaskiisa ayaa waxay haayeen tourist bay haayeen siyaxad bay u baxeen siyaxadii baa iyagoo ay soconayeen bay lumeen magaaladii ku socdeen iyo hudheelkay ku socdeen ayay ka lumeen in badan bay socdeenoo gaaladana waa taqaanaano waxay doonayeen inay soo arkaan tuulo walba inay meel walba maraan bay doonayaan ninkan iyo islaantiisiioo daalay ayay guri ku garaaceen ninku marka wuxuu yidhi ninkii albaabka naga furay turki buu ahaa ninkii baa waxaan ku yidhi war addareyskan ma garanaysaa meeluu yahay wuxuu yidhi garan maayo laakiin meel idiin dhowi ma jirto waana fiid aniga caawa ayaan ku marti qaadaye ah ii soo gal guriga wuxuu yidhi gurigii baa maqsinkii baa yara suga buu yidhi gudihii buu galay markuu gudihii uu galay soo gala buu yidhi aniga iyo xaaskaygii buu meeshiina seexiyey cuntuuna siiyey wuuna marti qaaday si wanaagsan buu noo soo dhoweeyey subaxdii ayaanu kackacnay annakoo wanaagsan waxaanu sid markaa u mahadnaqa wuxuu yidhi markaa guriga albaabkoon ka soo gallay iyo albaabku ka baxay way kala duwan yihiin albaabkii uu ka baxay ayaana yidhi excuse me waa guriga cidima joogta waa layla hadli waayo albaabkii baan furay waxaan arkay buu yidhi ninkii asagii iyo caruurtiisii iyo reerkiisiioo is urursaday oo daaradda hurda show guriga gebigiisa maqsin buu ahaa buu yidhi maqsinkii buu nooga baxay waxaan ku idhi buli markaa waa nin daaciye iminkoo weyn waxaan ku idhi buli maxaa sidaa u samaysa wuxuu yidhi diinta iyadu waxay nagu dhiri gelinaysaa inaan ikraama dayf inaan dadka martida ah aanu xaqooda aan sino waa kii nebigu sala allahu calayhi wasallam fi bukhaari fi alxadiid saxiix fi xadiid abi hurayra man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfa wuxuu yidhi bal islaamka ii sharax wuxuu yidhi xog badan ka garan maayo qudhaydiya iska miskiin baan ahaye bal kitaabkan qaado kitaabkii baan qaatay buu yidhi kitaabkii baan akhriyey wuxuu yidhi diinta cajiibka waayo nin kale buu yurub ila degan intuu aniga iyo xaaskaygan aanu aqoonin gurigiisa uga baxo ma dhacaysa buu yidhi wuxuu yidhi tii aawadeed baan ku muslimay marka min baab aliithaar haddii taasoo kale arrin ku saabsan arrimaha adduunka waa laa ba'sa min marka nacam iimaanka ayay ku salaysantay laakiin hadday kaa noqoto dhaqan iminka waxaa jira dhaqan maa jiro waxaa jira dee xeer jabjab baa jira oo anoo reerihiina haddaan ku imaado waxa weye marti adoo ikaraahiyadaysanaya oo le waniyo kan ilaahay goormu kaa furdaamiya ayad haddana maqsinka ay soo gelinaysaa
islaanta la soo sameeyay oranaysa shaha ii soo dhigaysa marka way kala waa kala xukum naam wallahu a'la wa kum maqlay wala هرت ابن الحزم رحمه الله وحيي سؤال وحوي وحيي ودن كان وحنون هاي شقاله سي مركا إن أضو الشقدي كشرو الشفتي كشرو أيو جمعيه سو قال عيدكم بدل سنة ما تشرتو إن عنك سياسة جمعيكم كلها في حكم كيدوا محي سو كمان صحين وحوي مركا ابن حزم وحيي مركا بشكل عام صلاة الله إيجو لا يجوز الصلاة قبل وقتها ولا يجوز الصلاة بعد وقتها لبض قربة إن وقت الصلاة أي تاجنت كهرت إن تكتين لما أقرأ كبعدنا إن تكتين لما أقرأ أنت وحي يكون لير صلاة الجمعة وفرق يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع culimadu marka waxay yiraahdaan ayagoo aayada cuskanaya wax la iibiyo iyo shaqo lagu jiro oo la shaqeeyo waqtiga jumcaha ay khudbadu socoto haday ku soo beeganto waa xaraan rizquna waa xaraan bay'una waa baatil xitaa kala iibsiga kala iibsanaya bay'u la waa baatil laysa lahu asl way waqtiga salaada ay ku jiraan baad ulama halkaas ay ka gaareen nabiguna waa kii noo sheegay saddex jumce haduu qofka ay dhaafto waa inuu dib u shahaata saddex jumce haday ku dhaafto isku xiga waa inuu ku dib u shahaadata waa macaasha lagu qabtaa waxa jirta marka annako wadan gaala joogna wadan gaalaan joogna nidaamku wuxuu nasiinaya oo waajib uu kaga dhigaya shirkadaha u shaqeyno inaanu waqtiga salaada jumcaha inaanan gafin وأنكو قال وشقينا أيتكو أردنا سي excuse me وان صوتو كان يعني هكا يقصي هاي كل ما هذا الكرام وحان أركا مركا إذن كو ودن إسلام تشوغو وإذن كي مغلي وأن آمن سنة هاي النظام كو هدي الله صوبان لقو إنو إذن عاونا يو فرتا إني الصلاة إذن طافتو ما بقاها ولا يجوز حالات باكرة للضرورة وشيخ بن باز أفتى فيها وشيخ بن باز كهضلي وأي كميت هاي مثلا قف شقة معينة كتشرة وأن كبح كريني سؤاشي اللي وصل برني شيخ وحيا هاي دختر عملية جراحية قلية قف بقرية وقت قال له قبتنا ووقت لير الذي طبعا صعب مرمر دختر هذا كتشرة حاجة غرفة العمليات قف كاسي مركا ما نبدل كرو سكجولك كما دي كرو السبت ده اما كما دي كرو خميس واني هيستا حكم كيدي وامحي مركا تاسو كله لا باس هدي تهيد مرمركا قاركود اي ارين ان دم جمعه والبا جوجتا انا اهينيتي جمعه مرمر كو سو بيغمي سندكي مر اما لبا غور او دي للضروره هذه لا باس لكن أديكو مسلمة وأشهادنية وودن إسلام تشوجا وإيدانكي مقلية ووقتكي قرنية ومساجدكي لقيا بين الخبدي ساد لقيسن كرتيد إن كم قناتيد دي أنو تعقيلوا مهيو سين أوتشي دين كرانا و في جعبة حمرك أنت العلم أن أخري سين أوتشي دين كرانا قرن مايو ما نتشي دين كرا مركا قفك مؤمن كيف فليتقي الله وحن شقدا الله إذا هذانا waxaan ugu wada jiraa shaqada waa rizq soomaha waa masruuf ka iyo shilin kaaya hadii saxiix muslim nabigu wuxuu noo sheegay konton kun oo sanadood ka horto ayuu rizqaagu qornaa wax walba qornaa konton kun oo sanadood intaan adduunka ma la abuurin ayuu wax walba qoraayeen ilaahayna wuxuu waman yattaqi allaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib hadii ilaahay horti taa aad ugu tagtid أما دوجد قالنتي
ilaahay subxaanahu wa tacaala makhrajna wuu ku siinaya meel aanad filayna risiq buu kaa siinaya marka taana ilaahay hala tala saarto ilaahay hala tala saarto waxa inama fara wallahi haddaan idinka sheekayo mala 20 ilaa 30 shay qisas oo gaal inta ku yiri jimcaha ma tagi kartid shaqadii uga tagay ayaan garanaya mid shaqadii ku soo noqday mid gaalkii inuu soo tukado u diiday laga eriyay asaga aawadi mid intuu shaqadii iyo gaalkii bay iskaga tagay mid ka fadli badan oo shaqo ka wanaagsan oo ka murattab wanaagsan oo ka mushaaharo wanaagsan ilaahay siiyay boqolaal qisas ayaan haynaa oo aan la noolahay haddaan kanada degannahay marka haddii ay noqoto cibaadada ilaahay laa tufarid fii janbi illah ilaahay ku barakayo naam نعم نعم ما فهم horta waa dhab sheekadan wuxuu yidhi aniga ku dhacday booliis baan ahay waxaasoo dhan waan fahamsanahay midna waan fahamsanahay inaan lagu ciqaabayo ninkaas ku ciqaabayo waan fahamsanahay inuu ilaahay haddaad jimcaha ka tagna ku ciqaabayna waan fahamsanahay soo maad garan marka labada ciqaabood kala dooro wax kalaa jira horta dhagaysta waa dhabo waddan gaalahaanu joognaa waxaan aaminsanahay xuquuqda halkan ku haystaan inaanu xagga mid ka wanaagsan ku haysano markaan dhinacyanu ka eegno meelo fara badan naga fadli badan tihiin laakiin yaa ikhwati fillah tani waa diin islaamku ma aha islaamka waxaan la yidhaahdaa ma aha wax ku imanaya si hawl yar jannadu waa qaali wax jaban ma aha aynu aamino aynu ogaano haddiinu islaamka aynu ku dhaqanno oo aynugu dhaqanno sida inaka aynu doonayno iyo markana inaku doonayno marka inaka inoo fududahay dee islaam ma aha suhayb arumi waa la cadibay suhayb arumi markuu cumar bin khataab ka hadlayay sheekadii bilaal bin rabax yar dhagaxii la saaray أيقول يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري أمير المؤمنين أقول بدبر كيجا إيك دبر كيبو كقاضي مرضة وحو أرك مكاسول يا أمير المؤمنين بقول أنت رجل الضف سيدان أيا أنيجا بوي دبر كأيا ليسارجري سيد ضفك أنيجا ليسارجري بقول بنيجا يلعنك يا بروتا دبر كيجا كشير أنت كدلاشة أيا ضفك الحشة بختين ترتبوا يا أمير المؤمنين ثم يدون كرم صهيب ياسر عمار بن ياسر النبي يقول الصبر لآل ياسر فإن موعدكم الجنة دين كان يسيح وليركم إيمانس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لبيكوا أفلحين الإخلاص والتضحية إن إذا عدوا هايين دينته
iyo inay sacrifice iyo tadxiye ay la yimaadeen wax walba u horeen diinta taasuu ilaahay ugu gargaaray taasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cizad iyo sharaf ku siiyey laakiin haddaynu inaku ka baqno bani aadam ama aynu nahdo shaqa lagaa eryaya ama ciqaabaa lagu soo dejinaya dee tii ilaahayba horta meesha taalla saalim bin cabdillaahi bin cumar bin khataab wuxuu ahaa xamaal buu ahaa nin xamaaloo dadka suuqa ka shaqaystu ahaa isagoo ah imaam ataabiciin imaam ahli sunna waljamaaca ayaa haddana xamaalnimo ayuu ku shaqaysan jiray asagoo ay tuurtu u raran tahay oo gosaro timira iyo jawaan caynkaasa iyo alaabtaas sida ayuu maqli jiray xayi cala asalaa xayi cala alfalaax ninkii alaabta ninka u raraana wuu daba socdaa ama wuu hor socdaa markaasuu dhigi jiray markaasuu odhan jiray kii kaa fadliga badnaabaa ii yeedhay amarkii ilaaha ayaan qaadanaya alaabtooda halka ama ha sii taalo ama cid kale u diro waxaynu ogsoonaataa aynu kulligeenba wada ogsoonaanaa ninka dadkaynu u shaqaynaa ayagoo risiqa inooma hayaan ina allaha huwa arazaaqu ayuu yihi dulfadl ilaahay subxaanahu wa tacala ayaa razaaqa ma aha ninkanaad u shaqaysid iyo shaqada ku keentay kafaaladaada kafiilka ma jirto waxaas wax walba ha noqoto cuqubo waxaan garanayaa subxaana allah ma aha sheekadani sheeko faana laakiin inuu ilaahay kugu bedelayo wax ka fadli badan oo ayaan garanaya ayaan idinka sheekaynaya nin sidaa lagu yidhi haddii aad jimcahan ka baxdid ha soo noqonin haddii aad jimcaha aad baxdid ha soo noqonin baa lagu yidhi wuu iska baxay wuu soo noqday wallaahi yani maa zaadahu allahu ilaa ciza markuu ninkii uu soo noqday subxaana allah ninkii gaalka ahaa ninkii ixtiraam buu u qaaday wuxuu nin waxaa tahay man of principle nin mabda leh baa tahay buu yidhi nin mabda leh oo aan mabda'iisa aan la rogrogi karon la qalqaloocin karon ayaa tahay buu waan kugu ixtiraamaya waxaan garanayaa anoo ku jira grade 11 yani grade 11 xaggayga waa iskuulka yani sanad baa iskuulka iga hadhay ayaa wax macallin buu ilaahay igu soo beegay katholika oo khabiisa macallinkaasi waqti salaat aljumca waxaan markaa biology dhigan jiray alaxyaa baan dhigan jiray maskuulkana anaa ka muslina macallinkaasi waxaan ku idhi anigu muslim baan ahay jimcaha waan soo tukanaya wuxuu idhi dee kaniisadda gal buu igu yidhi kaniisadda markaa iskuul kaniisad buu leeyahay aanu ku tukanno kaniisadda gal buu igu yidhi waxaan idhi ma gelaya ilaahay baan soo tukadaa muslim baan ahay ii fasax wuxuu idhi haddii aad baxdi waan ku ciqaabaya maxaad igu ciqaabaysaa every friday aad maqnaatay 5 baan kaa jaraya darajadood sanadkii oo dhan jumco walaad maqnaatid ba 5 baan kaa jaraya subxaana allah waxaan ku idhi ilaahay baa amray inaan tukado waan tegaya isabtii buu yidhi jimco walba markan baxay wuxuu idhaa Mr. Rage buu idhahdaa Ragow don't forget your punishment is 5 marks 5 baan kaa jaraya ilaa uun buu yidhi shanta imtixaanka ugu dambeeya calaamaat النهاية ayuu iga jaraya imtixaankii waan galay calaa yaqiin baan ahaa inaan dhacayo koorska yaqiin waayo marka 5 jimco walba lagaa jaro xitaa haddaad imtixaan walba 100% aad keentid assign walba 100% aad keentid xuduurkaagu 100% laa yumkin inaad darajada keentid darajada najaax waan galay imtixaankii baan galay darajada lagu soo dhajiyay gidaarka biology ee baan keenay waan u tagay waxaan ku yidhi sir maxaa dhacay wuxuu yidhi waan eegayay I realize you are a man of principle buu yidhi nin mabda la baa tahay buu yidhi waa iskuul baan ku jiraa katholika asagu waa katholik jimcaha wuu diidan yahay markaan ogaaday inaad mabda leedahay ayaan ku siiyey full mark xabad kaamaan jarin markaasaan idhi ficlan waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja marka waxaan idin leeyahay waa ogtiin waxaan odhanaysaan dee sheekh adigu baasaboor kanadiyan harta sidataa waan ognahay kowdhe haddii xitaa shaqada lagaa eriyo dowladda ku masruufaysa annaka laakiin hargeysa iyo burco iyo barbari iyo xamar baa laga soo qaylinaya
كولا نين عربنا وإكفيل مركز ده شيخ هيسكو أي قياسنا أنا واحد الله هي دين توهلك أما كندا تشوق أما تشاينا تشوق أما وقت الصحابة النقو أما هالنقطة في المستقبل دين تاني وحي يكون إيمان بالتضحية إن الله إلهي سبحانه وتعالى لا يضيع وحي أجر سميستان مرة مرلومين أيوه هدي إلهي هرتي أصلا ميسانا والله ثم والله ثم والله أديك أو معززة أو مكرمة أو إذا هيبدي وكل مية أياد وحورد ويجسد كسينية مركا أنا وحن ليهاي اتقوا الله ما استطعتم ثم إلهي لقى عبصدو dadka الناس adag ugu sheega war anigu muslim baanahay saddex jimco wax ka badan jimco macquul jimco laba jimco macquul laakiin saddex jimco la yumkin ina ku adkaysataan weeye hadii ay idin diraan oo idin celiyaan ama shaqada idin ka eriyaan de intaan halkan imaanin kii rizqa idin siin jiray ee idin masruufi jiray ee ilaahay ahaa wali wuu jooga kii hargeysa iyo barbare iyo burco idinkoo jooga idinku rizqa halka idinku keeni jiray de waa asagii on subhanahu wa ta'ala marka ilaahay diintiisa cidna ha joojinina ilaahayna wuu idin sharfaya wallahu a'la wa a'lam saashu ugu dambeysay insha Allah ugu soo gunaanadan والي تعويض مربي تعويض بس حتى هيستفرج فني بالصناعة يعني مسلم أو فلسطيني أو فلسطين مريكا ويا ريت يا أخي إيش هذا الصلاة بعدين السبب أول والساعة بعدين تصلي وكان تدخل ست بعد ست دقيقة لكن ولا يدعو لي ما يرضى ضاكي ميسا يجي كجرا كوشا سيسون تاجي أساسا مسلم بايمارس مسلم كلام مكة بأش واحد عاد مخدوم فابكات في هذه وقت بتاعته بعدين الله يكره sidii aan u sheegay su'aashu waxa weeye shaqada ku xidhanta wali salaad taagan oo maghrib oo kala ah dib ma u dhigi karaa sidaan idiin sheegay aan markii hore carab ku dhuftay qowl ibn Hazm كثير من العلماء waxay aaminsan yihiin haddii salaadu waqtigeedu dhaaftay inaan la qalayn karin كثير من أهل الحديث waxay aaminayeen inaan salaadu qalaba lahayn وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري لبضب waxa ku soo arooray inuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam salaada laba goor ma la qalayn kara hadii aad ka seexatay hadii aad ilowdid mar saddexaad ma jirto buu yiri xadiiska labadaas uu sheegay marka hadii aad gaaladan ay ku leeyihiin ay ku dacweynayaan horta ilaahay subhanahu wa ta'ala da inuu marmar ilaahay warta faraj ku siinaya hadii ilaahay u taad u wadid ilaahay faraj la shak in ilaahay yafrij anka إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلهنا وكل دفاعية كوروري مرايكن يا كندا وحورت أيدي كوب شارين يا وما قشان وحما قشان إنما الصوماليين أو نقضي ده قوم لوط هبلوك عين كاسة تضحوا ماضي لكن واحد يدي كوب شارين يا ودي بحق نورث أمريكا إن يدتك الصوماليين أيهين دتك الدين تجدبية أو غارسية ayagoo hindidu intaasoo boqoloo sano naga soo horeysay qaar baa boqol iyo Churchill joogay qaar baa 80 sanadood joogay qaar baa generationkii afraad ee ku dhasheen haddana Soomaaliya yaro madow sidoo diinta u fiicid uma ifidinin Soomaaliya xitaa siyaar markay diyaaradda ay soo dagayso siyaar Washington markay diyaaradda soo dagayso announcement waxa lagu ilaahdaa dadka diyaaradda fooshan
qofka doonaya inuu taxi raaco khamriha qaadanaya waayo ma Soomaali ba tagaasida wado Soomaali wax qoonay wariga deg khamr soo ma wada najis iyo ku deg boodhanaya halkii uu ku dajinaya asaga khamrigiisiiba gaaladii maxay sameeyeen way soo ashkatoodeen taxigan anaku dalbanay ee wadankaygii jooga aanu lacag ka bixinayno ee khamri aan anigu seefsiday leegu dajinaya waa maxay Soomaali waxay anaku khamri ma qaadno haddaanu muslimiin marka ninka diyaaradda air house gabadha diyaaradda announcement sheegay ku leedahay khamri qaadanaysid aad taxi qaadanaysid iska ilaali Soomaali ba ka horeysay iska ilaali Soomaali garan yani waa cajiib imika in Tony Blair Soomaali maqal in gabadhii maxay in dumashidi ina Soomaaliyeed buu Sheekh Cabdulqaadir noo sheegay ina Soomaaliyeed ba dacwada siiyay ku muusintay aawadi in dhalinyaro dacwada waxa wada marka qurbaha aanu joogno Soomaali baa wada waxay ku wadaana waa mawaaqif ka soo miiran ay ku wadaan oo ay sidii raganimo isu taageen ay yiraahdeen war anaku adduun ma siisana diintayada waanu ku dhaqmaynaa waanu shaqaysanaa anaku shaqaysanaa oo ku ixtiraamana laakiin anaka tayada ixtiraam hindidii qaqaawanay halka xijaabka dumarku hindidu markan u tagnay gabadhu xijaabku markay masaajidka soo gasho intaasay saaranaysa laba goor bay xijaabka soo yar dhaweynaysa ma xiranayso qoorta ma qarinayso way soo yar dhaweynaysa waa marka quraanka la akhriyayo iyo marka imaamka aragto wadaad marka aragto ayay soo yar dhaweynaysa aqalkii Ilaahayna ku dhex jirta haddii quraanka la akhriyana way soo yar dajinaysa hindidii sida ahayd baanu tagnay Soomaalidii baa tagtay Soomaali qaxoontiya oo aan Ingiriisi garanin oo shalay shaqo lagu siiyay ayaa gaalkii ku leeyahay no jumca no goodbye oo ka dhaqaajinaya dan kamale Soomaali security-ga raga security-ga haya ayagoo security oo loo diray meel xitaa qaar ka maartay in elevator-ka ascensor-ka ayaa la ka degin waayo meeshu waa construction adaa meesha ascensor-kii ku tukaday Allahu akbar ستردنا وردكتي كي صقل واحد هذا no stop يعني مواقف كأي صومالي دو أي استاكتي يعني جلد كأي موتشي أي الدون كبيس بدل في الغرب تا أود ما يمكن واحد الله أركان جارية القرى اللي قبقه وجارية الصومالي في الغربة جارية القرى اللي قبقه باكستان تنيه هندي تنيه عرب تنيه ولي عرفت اسكدا عرفت قبلهم ما تسامر كفى الله من القتال لكن تقول الا قبقه dadka laga boqo waa Soomaalida Soomaaliya roqoxoontiya oo inta leeg oo findicraad moodid oo cadceedii ay soo gubtay Soomaaliya oo aan sharci taalahayn oo nin madooba ayaa adduunka soo taagaya waa salaah ma jirto iskuulka jaamacada uu ka dhex adimaya ma jirto galaaska ayagoo 500 arday ay sida u joogan oo stage-kiisa loo taagan yahay ay arkaysaa Soomaaliya oo barta ka soo daadagaya sujaayad halka dhiganaya professorkii halkan taagan dariska sharaxaya halka koonaha ayuu fidanaya Allahu akbar dan kamale waa izzat an-nafs waa izz waa sharaf marka mawaaqifka aynu taaganahay hadii ku adkaysanana haysan Ilaahay wuu ina sharfaya marka anigu waxay idin leeyahay walaalayaal إلهي هينو هول يرايو قربه ودن كان إلهي نو هاجي هينو ردتشيو خير كان هكذا إنه كوه يسلم متكون أكتر هاي نسيو وحنا لنا الله في الدين والدين تإنه إلهية أو إنه هي وإن دعاء سنة آمين لها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وارحمنا ولا تعذبنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم احشرنا مع زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله